qoladan waxaan rabaa maanta inaan la kaftamo nimanka dowlad goboleedyada inaan la kaftamo iyo waa yaabanaya adinku shabaabka miyaad iska iibaansateen maanta inaan saa idila hadlana laba arrimood baa sababaysa weligay dowlad goboleed sooma hadal qaadin anigu dowlad goboleedka Hirshabeelle intiisa badan maanta waa xor inta dhimanna haddii alla idmo goordhow baa la isu furayaa isteedada kale inaan la hadlo dhowr arrimood baa maanta ii sababaysa aniga fakultigaygu waa gobernatore waxaan ka yimid degmada Batabaan oo dhinaca noord xigta waqooyi waxaan joogaa degmada Jalalaqsi oo dhinaca south-ka u xigta ama koonfur ninkii maanta lagu daawado biri waa ku daawo doonaa haddii alla idmo hadda baan idiin sheegaynaa muddo ayaa Soomaaliya ku yimid war isteedadii kale mee Hirshabeelle bas xabado ka dhacaysaa aawo isteedadii kale maxaana loogu daawanayaa meeya Soomaalinimadii meeya muslimnimadii meeya sharafkii iyo karaamadii bini'aadanimadu aawe waa ina loogu daawanayaa waa inta saddex xaraf loola baxay walaba meel ay u fadhisaa sabab aaway sharafkii Soomaalinimada aawe waxa la laynayaa soo shacab Soomaaliyeed ma maxay noogu eeganayaan wax dowlad goboleeda inkastayna kuwan Soomaaliya la isku dhihi jiray aysan ahayn nimankaas kilinka shanaad dowlad deegaanka way naga mudan yihiin inaan u mahad celinno kun jeer naga mudan yihiin walaalayaal waa mahadsantiin maanad ilaahay idinkoo ah shacabka iyo dowlad deegaanka Soomaalida waxaa kaloo inaan u mahad celinno naga mudan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii qadarta alla ka sokay sababay guulaha aan gaarnay inaan gaarno sabab u ah waa u mahad celinaynaa waxa sida uu noo yahay aanu nahay isteedada inteeda kale waxba ka sheegi mayno laakiin siday noo yihiin aanu nahay siday noo yihiin ayaanu u nahay waryaa Soomaaliyeed war noo kaalayo xitaa sabkalaan si qabiilnimo waa u hadalnay meediya wax noo shanqarana waan weyn sidaad noo tihiin baanu idin hayno ma annaga adeer derbigaanu joognaa waanu falnaa annagu tacabkii beerta ahaa derbigaanu ku geynay ninkay ka jaaman tahay yeelkiis noo kaaleen muddanidi Soomaalinimaan u hadalnay si ka sii hoosaysan u hadalnay wax walbaanu habar wacannay waa dhag jaraq waa naloo sii waay soo maaha siday noo yihiin baan u nahay maanta kadib annagaa si cad u sheegaynay Hirshabeellena inta la haysto oo cadowga asagoo dhuumaalaysanaya uu ku dambeeyo iyo intanu ka saarnaa badan inta kalena waa ka saarina haddii alla idmo